waxaa maanta magaalada Berbera si ballaaran looga xusay xuska 18 May oo ah sanad guuradii 28aad ee ka soo wareegtay markii ay Soomaaliland xornimadeeda kala soo noqotay dawladda Soomaaliya. kumanaan ka mid ah shacabka ku dhaqan xaafadaha kala duwan ee magaalada Berbera ayaa waxay si weyn uga qayb qaateen muujinta xuska 18 May. ciidamada kala duwan ee qalabka sida ayaa iyaguna waxay gaardis ku soo mareen jidadka waaweyn ee magaalada Berbera, waxaana sacab iyo mashxarad ku soo dhaweeyay dadweynihii ka soo qayb galay munaasabadaasi. shaqaalaha dawladda hoose ee degmada Berbera, kuwa gobolka Saaxil, kuwa dekada Berbera iyo wakaaladda biyaha Berbera oo ku labisan calanka Soomaaliland isla markaasina sitay boodhar weyn oo ay ku xardhan yihiin halku-dhigyo wasaaradaha sida weyn uga dhex muuqday xuskanina waxaa ka mid ahaa wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga gobolka Saaxil, wasaaradda waxbarashada, wasaaradda caafimaadka iyo hay'adda barakacayaasha iyo qaxoontiga ee gobolka Saaxil ayaa iyaguna dhankooda muujiyay doorka ay ku leeyihiin ka qaybgalka munaasabadda xuska 18 May. shirkadaha ganacsiga ee Omar iyo Deera Group ayaa iyaguna waxay si weyn uga dhex muuqdeen munaasabadani, waxaana sanadkani xuska 18 May bulshada reer Berbera kala soo qayb galay wasiirro ka tirsan xukuumadda Soomaaliland. waxaana ugu horeyntiiba halkaasi shacabka reer Berbera kala hadlay xogayaha fulinta dawladda hoose ee degmada Berbera Cabdikariin Aadan Cadde, maayir ku-xigeenka degmada Berbera ahna kusimaha maayirka magaalada Berbera Baasha Cabdilaahi Yacquub iyo maarayaha dekadaha Soomaaliland Siciid Xasan Cabdilaahi, waxaanay ku dheeraadeen ahmiyadda ay maalintani u leedahay shacabka reer Soomaaliland. Soomaaliland way socotay, la isku daalmay waa qaran madax bannaan. maalinta 18 weyna waa maalin Soomaaliland oo dhan ka tashatay oo aan cid gaar lahayn. aad iyo aad baan u hambalyeynayna. kelmadeeda waxaan ku soo koobayaa dhalinyarada yaryar ee iminka meelaha shaarka soo xidhanaysa Soomaaliya ee laga xaday maskaxdii waxaanay war ka haynin kuwii da'dooda ahaa waqtigii faqastii in lagu leeyay ama 30 sano lagu xukumayay in haddii alla yiraahdo ay ama iskuulo ama dhakhtar nadiifinayaan ku daafada ka xaalayaan. fikirka hal furo waxa weeyaan waxay ku dhasheen oo ku barbaareen oo ku hara qaadeen Soomaaliland oo xora. aad iyo aad ayaan gobolka Berbera wala tartamayna 18 May waa maalin laba taabtaana, waa maalin qof kasta oo Soomaaliland qalbigiisa ku xadhan, waa maalinta midooday Soomaaliland, waa maalinta Soomaaliland oo dhan bulshadeedu wax wada yeelatay. cid wax yeeli karta dhammaanteen talafadaynu ka taaganahay haddaynu nahay reer Soomaaliland oo dhan. maantana si weyn baa looga xusayaa ummadan faraha badan ee gobolka Saaxil gaar ahaan degmada Berbera isugu soo baxday iyadoo Soomaal waxay muujinaysaa miisaanka iyo mugga ay ku leedahay 18 May. Soomaaliland way 28 jirsatay ku buuso quraan jooy way. Allahu Akbar. Soomaaliland ha noolaato, Soomaaliland ha noolaato, haysto. barasaabka gobolka Saaxil Injineer Axmed Cismaan Xasan iyo qaar ka mid ah wasiiradii kala soo qayb galay bulshada reer Berbera xuskaasi oo iyaguna halkaasi ka hadlay, waxaanay kula dardaarmeen inay ilaaliyaan ammaanka iyo horumarka ka socda gobolka Saaxil. maanta waxaynu dalbaadaynaa sanad guuradii 28aad ee ka soo wareegtay markii qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland uu tashaday ee uu la soo noqday xornimadiisii. walaalayaal waxaan aad iyo aad idinku hambalyeynayaa runtii sida qiimaha leh ee aad uga soo baxdeen ee aad dareenkiina u muujiseen. runtii haddaynu eegno waxaan ku dhaday astaanta maanta ama kelmadda loo qaatay maxaan ku dhahay halku-dhiga sanadkan oo ah ummaddii isku maana ayaa meel wada gaadhaa. taasi waa kelmad culus, qof kasta oo dareen leh u garan karo. isku maan baynu nahay, waxaynu halkaa ku soo gaadhnay dadaal aynu isku mudnahay oo aynu dhinacyadaysa soo haysanay. Berbera waxaa laydinku soo dooranayaa waa xadaaradda iyo albaxnimada aad lahaydeen. ha iloobina yaanay hoos idinka dhici. waxaa laydin rabaa inaad tihiin dib u soo celisaan, kor u sii qaadaan, inay tiknolojiyadana kor u qaada. waxa weeyaan maalin weyn aad iyo aad bay meel dheer inaga taallaa. waayo waxa weeyaan astaantaa ayna u kulmisay iyaan nabadgelyo ku helnay. nabadgelyadii aan ku helnayna horumar bay keentay. boqolaal moogtahay maalgashi iyo aynagu soo socdaa. waxa laynooga baahan yahay haddaba
ninka maalgashigii wuxuu rabaa nabadgelyo ninka maalgashigii wuxuu rabaa dhul ninka maalgashigii wuxuu rabaa soo dhaweyn in intaa laynaga helo. intaasina kadib mas-uuliyiintani ayaa waxay ka qayb galeen wejigii labaad ee dabaaldega xuska 18 May oo lagu qabtay badda magaalada Berbera halkaasi oo ay ciidamada baddu ku soo bandhigeen dhoolatusyo iyaga oo wata laashash iyo doonyo ay ku xardhan yihiin astaanta Somaliland. Cabdirasaaq Qaasin jaamac wararka telefishinka Somali News magaalada Berbera.